haddii gabadha xanuunsan tahay ama ay daal fara badan dareemayso sanadihii hore intay ilmaha iska daba keentay rabto inay xoogaa yara nasato bareeg qaadato waxba dhiba kuma jabno laakiin waa inuu asaga u ogolaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta aad iyo aada idin salaamaya. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad fiicantiin. alxamdulilah annagana inta aad nala jeceshihiin. soo dhawaada mar kale kuna soo dhawaada barnaamij kale oo xiiso leh oo sidaad horey nooga barateen baa anigay walaashiin Fartuun Maxamed Cismaan halkan si wada jir ah oo ugu daadihin doono. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay inuu ka hadlaynaa naas nuujinta qaabka kala fogeynta mataqaana ama family planning loo yaqaano. dabcan shariicada islaamka waxa ay ka qabto iyo gabdhaha waxay tahay inay sameeyaan intaasba walaasheen ayaa mataqaana u dhuuntuleesha arinta oo inooga warami doonto. Fartuun ay soo dhawo walaasheen. bal waxaad Fartuun wax yar inoo sharaxdaa shariicada islaamka waxa ay ka qabto family planning. نعم family planning وتحديد النسل تحديد النسل وقفك أو ilmaha kala dheeraysto quraanku uu ku imaaday culimadana ka hadleen marka Allah subhanahu wa ta'ala markuu nuugmada ka hadlayay wuxuu dhahay wal walidaatu yurdicna awlaadahunna hawlayni kaamilayni gabdhaha hooyooyinka ah oo waalidka ah ilmaheedu waxay nuujinaysaa hawlayni 2 sano kaamilayn oo dhameystiran marka rabto ilmi ina kala fogeyso nuugmada u badanaysa cunuga marka ilaahay wuxuu sii daba dhigay khiyaar ka dhigay waajib kama dhigin liman araada qofkii rabo marka 2 sano hadaan nuujisid ilmihi marka 2 sano hakada ka galayaan kadib ilmaha kale marka cunugan 2 sano ku nuugo waana sida fiican caafimaadka u fiican dhaqaatiirtana hooyada inuu haduu nuugo uu ka caafimaad badnaana wan ka maskax fiicnaanaya cunuga kalenta aan naaska nuugin marka 2 sano kaamil marka cunuga nuugo ya kadib ilmo kale imaanayaan taas way ku imaaday marka waa qofkii raba laakiin oo labadii qofood isqabtay iyo ku xiran tahay hadii gabadhii ay rabto ilmaha isku nuug inay u dhasho ninkan uu rabo in isku nuug loogu dhalo marka khiyaar sharciyada siisay hadii ayada xanuunsato kalento duruufa imaanaysa marka waxay ka dhigtay shariicada ilmaha in la kala fogeysto open liman araada qofkii raba al dhahay sax marka goormay kala fogeyn kartaa gabadha waxay kala fogeyn kartaa markay isku raacaan labadooda sidaanada quraanka khiyaarka uga dhigay haday isku waafaqaan ilmaha inay kala fogeystaan way kala fogeysan karaan wax dhiba kuma jabno haday isku raacin ma kala fogeynayaan markaas haday ninka gabadha ilma ina dhasho uu rabo oo caruurteeda isku dhawaadaan awoodeedan ilada qof caawiye haysato oo caafimaad qabto oo ilmihi iska daba keento waxa dhiba kuma jabno laakiin inay isku waafaqaan muhiim ah labadooda ka waran marka Fartuun ay dadka ayagoo ninka uu ogeyn saa sameeya waa dambi khalad waa gabdho badan sameeyay oo marka ilmaha iska xiraayo ama qaar ka warwareegsanaya in ilmo u yeesto marka hadee xuquuqa dayacmanaysa marka qoyska waxa isku haynaa waa caruurta gabadhan waxay loo soo guurtay inay awlaado ilmo dhashaal raba hadaa caafimaad dara jirin dhaqamadii gaaladana soo galay waa marka ilmaha 2 ama 3 kaliya inta lagu kala iska xiro ama hal kaliya inta la iska xiro faraca bulshada hataa waa dhumaya oo maanta hataa umadaha aan muslimka ahayn dhibaatooyinka ugu weyn haysato hooyadii Yurubiyaanka kalento inay wax dhasho ma rabto inay wax korisana ma rabto marka waxay leeyihiin dawladda wax dhala lacag siinayna hooyada qofkii wax dhasho dawladda lacag ilmaha lacag lagu siina sida jaaniskaas waxa ka faa'iideysan dadka kale wadanka u hijrooday dhulka gaalada tagay kulama hadda hooyooyinka Soomaaliyeed xagga cunuga dawladda lacag u qoraysa siinaysa lagu dhiirigelinayo ilmaha dawladda ilmaha la korinayso marka laakiin hadda isku waafaqsaneen kaliya iskama qaadan karto laakiin iyadana soo ma jirto sidoo kale rag ma aan ogolayn in gabadha ay nasato tusaale ahaan gabdho qaar waxa jira xanuunsan gabdhaha qaar waxa soo maro xaalada ah markay uurka lahaayeen nafaqo badan maysan helin dhiig bax badan ayaa ku dhacay haddana isla markiiba ninkii wuxuu rabaa wax yarba ma aragtay in gabadha ay uur yeelato taa ka waran lacalla hadduu isaga diido gabadha maxay sameyn kartaa hadduu diido caafimaadkan u saamaxay caafimaadka gabadha caafimaadkeeda uu wanaagsan soo kabasho u baahan dina soo kabato waa inay u sheegtaa marka hadda sanadkan uur ma qaadi kara tiraahdo inaan nasto waxoogaa ilmihi iska daba ama xanuunan dareemaya ama daal baan dareemaya jirkeyga inaan soo kabsadaa rabaa marka way u cadeynaysaa laakiin nimanka qaar waxay ku goodinayaan haddii ilmaha iska xirto ama ay joojiso inuu reer kala samaysanayo oo marka gabadhii waxay ka dagaalamaysaa marka inay wax dhasho caafimaad daro kastaba qabto deerabta marka waxa ku xiran tahay labada qof hadii gabadha xanuunsan tahay ama ay daal fara badan dareemayso sanadihii hore ilmaha iska daba keentay
rabto inay xoogaa yara nasato bareeg qaadato waxba dhiba kuma jabno laakiin waa inuu asaga u ogolaado isna hadday iyada daalanta ama xanuun ay dareemayso ama daal dareemayso caruurtii ay kala nasato waa inuu u fasaxaa inay maxay ahaato xoogaa caruurta halka iska geliso taas macnaheeda maan reer kale inuu ku ordi karo ama maxay ahaato guriga haddaad reer kala samaysanayso waa inaad ku xisaabtantaa mas-uuliyadda imaan doonto gabdho qaar waxaa jira diinta yaqaano oo garanayo diinta waxay ka tiraahday kala fogeynta ilmaha xagga oo ku saabsan naasmuujinta iyo xagga caafimaadka laakiin waxaa arkaysaa kuwa mataqaanaa intii maadi iyo diini aan baran oo baadiyaha fog ku nool oo mataqaanaa dhibaatooyinkaas aad ay usoo wajahda aad ayagoo mataqaanaa tabar daran dhibaataysan haddana maanta dhan ma arkin oo lagu cadaadinayo inay uur kala qaadaan ilmo kale dhalaan taasoo kale ka waran waa naxariis daro waa handaro waa midda kale hataa waxyaabahan oo ilmaha faambilbanaanka isticmaalayo ama midda gacanta la gashto ama midda hoos lagu xiro maxay ahaato minka afkiisa lagu xiro ama kaniiniga la cuno oo markayba kulligood qaarkood caafimaad daray leeyihiin aan dhahay qof banaadisku dadka psychology ahaan isku si uma samaysna qofna jirkiisa uu aqbalaya qofna jirkiisa uu diidaya marka gabdhaha qaar way ku xanuunsanayaan qaar waxay ku leeyihiin lugaha igu bararay qaar waxay ku leeyihiin dhiiggii caadada iga wareeray oo marka waxaa fiican bas quraanka lagu sheegay inay nuujiso oo nuujiso nuugmadaas ugu fiican labada sano caafimaad darana ma arkaysid waxay dhiigan uu hakanaya inta gabadha la nuugayo oo uur ma imaanaya inta badan marka haday si fiican u nuujiso cunug si fiican u nuujiso uurka waa hakanaya marka ayadana way nasanaysaa ilmihina wuu koraya marka tartiiba markaas maxay ilmihi u kala sikanayaan taas waa wanaagsan laakiin waxyaabahan oo hadda ilmaha lagu xadidaya badanaa caafimaad daray leeyihiin laakiin dad oo u shaqeeyana way jiraan laakiin dhiig wareer ay leeyihiin xanuuno ay leeyihiin mandhicir xanuun ay leeyihiin dhabar xanuun bay leeyihiin siday gabdhaha ku sheegayaan isticmaalay laakiin dad badan u shaqeeya waxa kale arkay gabar isticmaashay oo ilmihii dhanka istaageen ayadana waa arkay laba cunug ay ku hakatay mudada jaamacadda dhigan sida dhigan laba isticmaashay waxay isla inta waxbarashada ku jirto caruurta iska haki koob horta xanuun ay ka qaaday waa ka reysan weysay ilaa yoomina hada ilmo kalena way yeelan weysay markay jaamacadda dhamaysay dhibaato weyn ka raacday si walba dhakhtar kasta u tagtay camaliyad ay soo gashay daawooyin la soo siiyey nag halkaasay ku hakatay marka waana daawadii markaas ay cuntay mahadsanid fartuune idinkana asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijyada nagala qayb qaadataan marka la soo dhawaada ayaan idin leenahay aadaan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh